بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba waa dardaarankii ugu dambeeyay ee Somali State iyo Somali Good Somali State waxa ay qabanaysaa intaan u soo laabanin Ethiopia way cadeysatay waxa ay doonayso colaadeedana way cadeysatay waana ku karantiishay oo ku diiday in aad ka mid noqoto waxaan rabaa Liu Boriskan hala badhaya Liu Boris oo shalay Kenya dhintay عذاب كجرا ما أنت آمن نك ما أنت كبد بهذه ما أنت ريوبرز سكمل نقطة جاس في عمرو إلهي سي وكتبت كانوا بريتولي عدي دجال رعاه دتكين ربنا عكرها يوسن دونا قاطع دم بيد السرن دجال كوا دجال وكل بيحدونا وان حال لو كان نحن جن ينصب على بيحدونا جن تنا اللي يقول يسندونا هل كانوا حنصل الله بنيا maamulka iyo owana laf hal baan dhahayaa Ethiopia waxay qarsatay mijiraan Ethiopia idinku taagan bi heshiis la soo gashay Djibouti ceelkiini laakiin inaad aamusnaataan ma aha waxaad ka sugtaan dadkan rajo ma laha waxaan idinku baaqayaa sida ugu dhaqsaha badan in aad ku baaqdaan in idin heshiiska raali ka ahayn in idin Ethiopia ay ku xadgudubtay masiirkeenagiina waxba nagala tashanaynin waxa federaalka wada magacaabay dhan waxba naga siin xuquuqda Ethiopia ku leeyahay wulina ay gacan bidixin ku jiraan waxaan kaloo idinku talinayaa sameeyo odayaasha deegaanka odayaasha iyo culimo oo diinka sida ugu dhaqsaa badan kuna yarna u qora qabiil kasta oo Soomaali ah odaygooda oo deegaanka degan cid kasta ha noqday kamid ha ka noqdo golahaas labadii biloodba mar ha kulmaano mar kasta ha ka dhawaaqaano Ethiopia lid ha ku noqoto oo mar walba bay ka hadlaano arrimaha masiiriga ah ha noqdaan afayeenka deegaanka si ay u cabsadaan Ethiopia ogaadaan inaan isaysano culimo oo diin iyo deegaanka iyo muxuu ahaa odayaal iyo owan haddii owan laf iyo xataa maamulka ay yara gabanayaan golaha sameeya caalamka tusa waxa Ethiopia ay sameynayso ina federaalka waxba inaga siin inayna karantoole ha u xeer dhiganina nimanka rajama soo wadaan ani xaqiiqa idin sheegaya marka odayaasha sida ugu dhaqsaa badan Mustafa waa inuu ku magacaabo golaha xuqaasha odayaasha deegaanka iyo culimo oo diinka waa culimadii iyo jifa kasta oo deegaanka degan oo qabiil kasta ah odaygeedii gurnaha loo qoro difaaca ka galaan mar walba waxyaalaha dawladda federaalka ay sameeyso iyaga bayaan ka anagu ku hadlayna magaca deegaanka dhahan anna idinku ku dhigaada idinku gabanayo sameeya kuwa afyeen ka dhiga sida ugu dhaqsaha badan sameeya waayo caalamku wuu idin fiirinaya Britol hadii intay soo weeraraan dagaal u dhaco maxaad u carteen baa heshiisa ku jirteen tusa horta caabaha Ethiopia sameeyay caalamkan ha maqlaan caamalka waxa laga yaabaa dagaalka in horta mashruucooda u bedelaa macquul gala oo dib u laabtaan oo laga waayo waxyaalo badan oo la qayb marqaatin noqona markii la arkay in isku duubnadaas muujiya waa inaad sida ugu dhaqsaha badan haddaad xishoonaysaan oo laf iyo nimanka la yiraahdo Mustafa waa inaad sameysaan golaha deegaanka cilmoodinka uqaasha sida ugu dhaqsaha badan Soomaali man la soo hadlay oo Soomaali maanta jijiga tigi kartaa ninka Soomaaliga ah shaqo ku yaraysan kara jaamacad buu ku geli kara waa dal Soomaaliyeed haddii ceelka Soomaaliyeed aad tagto bari ay ka soo qaadba jifa kamid ah ay xataa yeelato uu ka badan yahay wuuna naga badan yahay waana kula barwaaqoobayna laakiin 100 milyan oo soo Ethiopia haday qaadato wallahi inaadan dhidhiminayna adigana ku kaala qof kasta oo Soomaaliya oo indhaha fur ceelka hadii lagu soo saaro wallahi 100 milyan baa deegaanka Soomaaliya la wareegay Soomaaliya oo dhan war ceelka inta la soo saaray 2021 war siyaasiyiinta ka soo horjeesada oo dhigay amsuraha war dhalinyaradan soo raac kacday oo aan lafto qalenta ah ee qadiyada leh ee Ilaahay u dhaaratay ee dalka diinta u dhaaratay ee dhigay soo raaca dadiidan 100 milyan baa dhaxlayso Kenya waxa ila dhawaaqayso waxa way dhulka waa dhaxay Ethiopia qaatay aniga inteeda soo goosto war saddexda ceelasha dalka iyo Jubaland la siiyay wax kale ma socoto inta aad fiirsanayso dulli Ilaahay ka furtay oo diin lahayn oo maanta ku hortaagan illa madaxweyne illa wasiir illa gol wasiir illa baarlamaan wallahi billahi tallahi waa lagu dhaxal wareejin markii heerka arinta gaadhana dalalka adduunka oo soo maray kacdoon baa wax lagu bedelaa waa inaad u aragtaa siyaasiga soo qabtay siyaasad iyo kan ma aragtay ahmaarka iyo kan xalano ku fadhiyo inay soo kamid yihiin anigu waan dardaarmay dagaalka Soomaaliya ceelkaas yaa la furay Soomaaliya ku dadaala midda kale waxaan halkan kala dardaarmayaa
undhahaya iyana arrintaa yareysana mustafiya oo dhalaf talaabo kastoo Itoobiya ay qaado oo masiir ah ka hadlaan haddii ay ka hadlaynin golahaas ha sameeyaan golahaas ka dhawaaqaan golaha ilmuujinka iyo odayaasha dhaqanka Soomaalida deegaanka hala sameeyay qorta qabiil kasta oo Soomaali si la arkay inaan isku duubnay xataa wixii difaacaysa jaajuuska xunka dulliga ka noqon lahaa xataa kuwana difaacayo sida ugu dhaqsaha badan haddii midnimada la helin waa wada dhamaanayna idinka difaac ku jiro idinka soo jabsan ahmaaro xuduudkiisa wareejinaysa Sacuudi sheegay inuu soo loo qabanaya hore aan ku sheegay lagu wareeji Burundi ka baxo ciidamada ninka Burundi aadisi ninka hadda Sacuudi madaxweynaha ku isan Burundi ciidamada in lagu wareejiyo Itoobiya la soo galiyo xuduudan waa la xiraya inta ciidamada Yunus Itoobiya la soo galin والصومالية كا والسلام عليكم وعن أوناكسن داوديال ومركلة إيه برنامج كأن الحق الدهصون قيبتين وحين كويجنا هشيسكي أي مانتا ورجالين دالك إثيوبيا إيه جيبوتي أو كوساب سنة إن شدالك إثيوبيا لقدو فيه تكت جيبوتي wadamada Itoobiya iyo Djibouti ayaa maanta magaalada Addis Ababa waxay ku kala saxeedeen heshiis shidaalka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya lagaga dhoofinayo dalka Djibouti. Heshiiskani waxa uu dhigayaa in dhuumaha shidaalka ka soo qaadaya deegaanada Soomaalida Itoobiya la gaarsiiyo dekedda Dameerjoog ee dalka Djibouti. wasiirka tamarta iyo kheyraadka ee dawladda Djibouti Yunus Ali Geedi iyo wasiirka shidaalka ee Itoobiya Dr. Samuel Urkado ayaa labada dal u kala saxeexay heshiiskaasi waxaana ay xaqiijiyeen in mashruucan yahay mid ka mid ah mashaariicda ugu qiimaha badan ee gobolka Geeska Afrika isagoo wasiirka tamarta Djibouti ku dhawaaqay xaddiga dhaqaalaha ku baxaya hirgelinta mashruucan oo uu ku sheegay 3.4 bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo masaafo 750 kiiloomitir la soo daadin doono beebabka qaadi doona gaasta shirkadda Shiinaha ee Bolai CGL ayaa fulin doonta mashruuca iyadoo dhoofinta gaasku bilaaban doono sanadka 2021 waxaana la aaminsan yahay in labada ceel ee gaasta laga soo qaadayo ay ku jiraan kayd shidaal oo gaaraya ilaa 8 trilyan oo cubic wasiirka tamarta ee macdanta Itoobiya Dr. Samuel Urkado oo munaasabadda heshiiska lagu kala saxeexday ka hadlay waxa uu ku tilmaamay heshiiska mid iskaashi oo qiimo weyn ugu fadhiya labada wadan isla markaana abuuri doona fursado badan oo shaqooyina dalalka Djibouti iyo Itoobiya oo labadooduba haatan ka mid ah dalalka Afrika ee uu dhaqaalahoodu kobaca sameeyo ayaa dhamaadkii bishii hore waxay gudiyada u qaabilsan iskaashigu kulan ku yeesheen magaalada Djibouti kaas oo waxyaabaha lagu lafaguray uu ka mid ahaa mashruucan maanta lagu kala saxeexday sida loo yahay dawladda Shiinaha oo maalgashi ballaaran ku leh qaaradda Afrika ayaa dalalka Itoobiya iyo Djiboutina waxay ku maalgelisay lacag fara badan iyadoo suura gelisay soo saarka shidaalka Itoobiya oo ka soo baxay gobolka Soomaalida waana ceelkii ugu horeeyay ee shidaal ee ay yeelato Itoobiya kaasoo la aaminsan yahay inuu sii laabi doono xawaaraha uu ku socdo kobaca dhaqaale ee dalkaasi شاد بيلاده واحد شاد كبقول كم الشمبر سنتي أي صومالي هو يلون ويدي إننا جنا قال كان الشتاء كاي خيرات كوضن كان كسر بحي عيد وقاعدين يا كسر بحي أي أورام وقول ترتميسو يا حمار وقول ترتميسو يا أديك لها بقول كم الشمبر سنتي لقوسين يا محي رجع نياه اللي هو جرى لاين هم سويدين لي برضه أقول لك وحيلين مدحويني هي بسايدي عبد محمد عمر كنت سالقاته إثيوبيا نينكي isku dhadhajiya isagay dili Itoobiya maxay ku haysaa khayraad kaama soo galo Bombay leedahay Chad bay leedahay khayraad kaama soo galo ninka moodaya mushaharka bisha mushaharka inay ka Itoobiya siin jirtay waa inuu aaminay inay wadankiisa uga soo gasho qofka ku faanaya calanka Itoobiya maxaa loo soo qaadan waaya kilalka war kilalka Itoobiya samaysay bayna isu sheegay calanka jabhadda xoreynta wadanka ogaadeen ay leedahay baa Kenya waa inuu aamino
warkolka hore qofku lahaanshaha iyo wadaniyada kolku ka kibro war adu xageed wadan u doonan kolkay maanta orama wadankaaga qaadato in Itoobiya qaadato war imisan baa ka maqan waa inaad isweydiiso muxuu kaaga dhintay ragaagi intaad adu bariiska cunaysa Itoobiya dabada u dhaqaysay ragaagi bay leeynayso gumaadaysay aday kugu gumaadaysay maxaa Itoobiya ka dhintay maalintay axmaar in haysatay ay wadanka axmaar haysatay rageen inta ciidanka New Booliska la sameeyay inta ka goday kamay goynday marka adu waa inaad isweydiiso wadanka inaad adu leedahay dalka inaad adu leedahay ciidamada ONLF inay wadankaaga yihiin hurdada aad adu ku seexan ee nabadgelyada ku seexan ee ONLF ninka ONLF rag ONLF waa la yaqaana naagahoodii xataa waa la guursaday intii joogtayna way wada mandhalaysoobeen in jeelkay ku quruntay iyagi gaajiya silica inta soo hadhiyo darxumo meel ay ka cabaan markay waayeen bay gaajada iyo silicu leynayeen waxa weeye nin rag ah markaa tahay jawhar xubin dawladda ma aha waa qof shacab weeyaan diin baa yiri baa la yiraahdaa afkan cagaar madoobe ku daaqay caws miyaan uga dambaysiin eelka maanta eelale inta aad aragtay oo dhibaato ah ka jirto een inagina harka jiifno ee ku meelaha la taagan yahay Facebook ee ku feebarka dadka ka caayayo ee kuwa dariiqa jeena group ku sameeyaan war inagu inaan Soomaalinimo ku dagaalano oo wadankeena inagu ridano oo cadow inaga taagroon baa ina haystay cadowga maanta cudud baan leenahay aan ku faano maxaa loo waayay waxa aniga ila quman jeel baan soo maray waa la xiray waa la kufsan jiray maxaa lagu kufsan jiray wadankaaga adiga baa la isugu kaadhigay wax kufsanay waa Soomaali wax gumaaday waa Soomaali ka ku gumaadayna waa Xabash raiisul wasaaraha la dhisayo xaafadooda beero xagaafaya been maxay isugu sheegi abiyo maalintu xilka qabtay dhibaatadii bilowday baa taagan awal weynaan baraaruguna dibku sidan buu socday malis markuu socday uu joogay Soomaaliin buu isku gumaaday kana tiiteedun buu ku gumaadayaa Soomaalida markaad iyada furaheeda kala saarto eed kala qoysqoys kala qobnaan ka samayso faa'iidada aad u heshaa wadanka waa lagu kala guuriye wadan balaadh way rag wadan budayda wadanka uu ku soo duulay adna waa jiiftaayo afaara qabiil iyo waxaan loo baahnay in hebel ha soo boqonin hebel bajaajta calaana ku xidhanin madaxweynuhu waa shakhsi ururka ONLF ninka la yiraahdo in Umar Usmaan baa xukumo waa shakhsi wadaniyada iyo walaaltinimada iyo magaca Soomaaliyeed adima ka go'an tahay mise waa maya ba meesha taal Itoobiya hanta qaybsi kama dhaxeeyo sababta ceelka shidaalka ee khayraadka wadankeena ka soo baxay Sacuudiga saliid baa loogu tagaa sababta khayraadka wadanka ka soo baxay ay Itoobiya inoola qaybsan inaguna jaadkooda iyo bunkooda aynaanu la qaybsanaynin soo inaad adigu isweydiiso ka fikirta ma waxbarasho waqtigaad heli waa waqtigaad muwaafaqo yeelato waqtigaad kalsooni yeelato waqtigay mabaadiida walaaltinimada iyo wanaaga iyo wadaniyadu ka go'naata weey laakiin reehbal ba halkan isku diriray China group halkan ka bilowday calan baa la diiday calankaaga markaa diido kaadu tagi waa ka intaan nool intaan gacmaha isqabsano rag iyo dumar intaan gacmaha isqabsano wadaniyada iyo dalka inaga aynaanu leenahay aynu aragno mustaqbalkeena iyo future-keena inta hadaa xataa aan dhamaano inta noolisa ay mustaqbal iyo qurux ugu noolaato wartii dhacda intaynu ku tusaale qaadano ilmaadeerayaal wadanka inaga la wadankeena aanu halgano wadaniyadu hay naga go'naato afaar qabiilka aan iska dayno Soomaalinimada iyo wadaniyada ciida inaga leh ilmaadeerayaal aan qabsano haddii ay inoo suurta gali weydo tartanka aynu ku jiro ee Itoobiya kula jiro cududii xoogan kula dagaalamano waranti baan haysanaa dakhli baan haysanaa geel dhabar waaweyn baan haysanaa oromadu markaa tagto wadankeeda buuraha dushiisa ka qodataa basash tu adika hadda warsanayo riyaalka ka ururinayo ee hubsistaan waral maadeerayaal ma baraarugsanina aan baraarugno wadankeena aan qabsano Itoobiya aan iska dhicino haddaan awoodi weyno qori afkaan iskaga celino hadalkan intaas aan ku